kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal markasta naga daawanaysaan kusoo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu dalkulanaya waxa kamida maxaa looga hadlay kulankii xalay dhaxmaray Fahad Yaasiin iyo Qorqor guddi warbixin u gudbiyay Ra'iisul Wasaare Roble guddiga doorashada xubnaha Soomaaliland oo shaaciyay dib u dhaca doorashada dadka reer Jarmal oo natiijada hordhaca u doortay Shaqalos inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha dalkaas James Swan oo ka digay halis ka soo socota khilaafka farmaajo ee Ra'iisul Wasaare Roble daawadadan cusubtaan ugu soo biir subscribe saar gambalkan fursiyad duusha doorka ugu dambeeyay aynu soo dhigno waa maalnimo asniina taariikhda ay ku beegan tahay 27 Sebtembar 2021 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran inkastoo kiiska Ikraan Taaliil Faarax uu si weyn daaha ugu qaaday ismaandhaafka farmaajo ee Roble haddana waxaa la fahamsan yahay in aysan labada nin isku wacneen muddo dhowr bilooda waxa ugu weyn ee la isku fahmi waayay ayaa lagu sheegay arrimaha doorashooyinka dalka ee hadda socda madaxweyne farmaajo ayaa la diray Ra'iisul Wasaarihiisii hore ee Xasan Cali Khayre isagoo ka caraysan damciisa kursi doonka ah wuxuuna 2 bilood raadinayay qof aan ka soo diisanaynin oo aan musharax noqon doonin haddii uu Ra'iisul Wasaare u magacaabo Roble oo maalimaha qaatay heshiis noocaas ah ilaa hadda wuxuu diidan yahay in uu u tartamo xilka madaxweynaha ballantii ahayd ha is sharaxin iyo in aniga idis waxa ka dambeeyay dagaaladii ka dhacay Muqdisho waxaana awoodii doorashada cadaadis badan kadib isku wareejiyay madaxweyne farmaajo inkastoo uusan Roble ka bixin ballantii musharaxnimada haddana waxa si weyn isku bedelay jadwalkii uu farmaajo u qorsheeyay doorashadiisa Roble uma muuqan waqti dheer nin raba in uu farmaajo dakano u galo oo uu doorashada u boobo tan iyo markii uu Roble muujiyay in uu yahay siyaasi dhaxda ka taagan loolanka doorashada waxa kor u soo kacday rajada dhinacyada kale dhowr jeer ayaa farmaajo lagu eedeeyay in uu fashiliyay wadahadalada xaldoonka ah sababtu kaliya ma ahan inuu difaacayo Fahad Yaasiin ee sidoo kale wuxuu farmaajo xoog saaraya in uu gacanta dib ula galo maamulka doorashada kooxda madaxweyne farmaajo waxay sheegayaan in ay u sawiran tahay natiijo guuldaro haddii ay galaan doorasho uu Roble maamulayo iyadoo la wada og yahay wixii dhaxmaray muddooyinkii la soo dhaafay waxayna aaminsan yihiin in ay qasab tahay in ay miiska maamulka doorashada dib ugu soo laabtaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa kula kulmay xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka wuxuuna ka dhageystay warbixin ku aadan wixii ugu qabsoomay doorashooyinka dalka ka socda Ra'iisul Wasaare Roble ayaa guddiga kula dardaarmay in ay dardargeliyaan kaalinta ugu aadan qabsoomida doorashada sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha guddiga ayaa Ra'iisul Wasaaraha ugu warbixiyay howlaha u qabsoomay ilaa hadda iyo sida ay ugu go'an tahay in hawsha ay u xil saaran yihiin ay u gataan si waafaqsan habraaca guddiga ee xal u helista cabashooyinka soo ifbaxaya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa guddiga kula dardaarmay in ay waajibaadka ka saaran xalinta khilaafaadka ku saabsan doorashooyinka u gutaan si hifan oo cadaalada guddigan oo kaalintiisu tahay in uu xaliyo khilaafaadka ka dhasha doorashada ka socota dalka ayaa horey u kor joogteeyay doorashooyinkii aqalka sare ee ka dhacay magaalooyinka Kismaayo Baydhabo Garowe Dhuusamareeb iyo Jowhar 28 bishan waxaa teendhada Afisiyuuni ee magaalada Muqdisho ku ballansan doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliland taas oo guddiga xalinta khilaafaadka laga doonayo in uu xaliyo wixii cabasho ah ee ka yimaada doorashada 22 kursi ee gobolada waqooyi ergeyga gaarka ah qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya James Swan oo shalay magaalada Garowe kula kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in xubnaha beesha caalamka ay walaac ka qabaan khilaafka u dhaxeeya madaxweyne farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble James Swan ayaa sheegay in beesha caalamka ay rumaysan tahay in khilaafka madaxda Soomaalida uu halis ku yahay hanaanka doorashooyinka dalka ka socda waxa uu sheegay in wafdigii uu hogaaminayay iyo madaxweyne Deni ay isku raaceen in madaxda Soomaalida ay si wadaan in ay wada shaqeeyaan si ku dhisan midnimo qaran ayna ka guuleystaan khilaafyadooda hadalka Swan ayaa imaanaya iyadoo ay burbureen wadahadallo u socday farmaajo iyo Roble oo ay dhaxadinayeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor wadahadalladaas ayaa burburay kadib markii farmaajo uu ku adkaystay in taliyaha NISA iyo wasiirka amniga laga dhigo xubno isaga daacad u ah isla markaana xilalka laga qaado
taliya Bashiir Goobe iyo wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur. Farmaajo ayaa sidoo kale doonaya in aan la baarin kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo dilkeeda lagu tuhumayo hay'adda NISA. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa xalay kulan la yeeshay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida ay ilwareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta. Kulanka oo ka dhacay hoyga uu Qoorqoor ka degan yahay nawaaxiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka Cabdiraxmaan Dhayre iyo wasiirka boostada Galmudug Aadan Qoryooley oo lagu tilmaamo shakhsiyaadka aadka ugu dhow ee kulamada gorgortanka siyaasadeed u dirsado Fahad. sida aan xogta ku helnay Qoorqoor iyo Fahad Yaasiin ayaa ka wada hadlay arrimaha weli taagan ee khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble ee weli xalka loo leeyahay. Madaxweyne Qoorqoor ayaa xilligan loo arkaa in uu yahay garabka ugu weyn ee villa Soomaaliya ay haysato tan iyo markii uu bilowday khilaafka Farmaajo iyo Rooble, isagoo horey isagu dayay in uu Rooble ku shirqoolo heshiis u daneynaya Farmaajo balse ku fashilmay. waa markii labaad oo Fahad Yaasiin uu banaanka ugu soo baxo madaxtooyada tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore, waxaana weli amnigiisa sugaya ciidanka waran ee NISA, taasoo ka dhigan in uu weli saameyn ku leeyahay arrimaha nabad sugidda oo aanu faraha kala bixin. Wararka ayaa sheegaya in villa Soomaaliya ay weli aad u doonayso in ay heshiis la gaarto Rooble oo hadda gacanta ku dhigay maamulka dhaqaalaha iyo warbaahinta dowladda, balse doonayso heshiis u daneynaya Farmaajo kaasi oo la marsiin la yahay Rooble. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa shalay si rasmi ah u wareegay xilka la taliyaha amniga qaranka ee dhawaan loo magacaabay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Hogaamiyaha bidixda dhexe ee Olaf Scholz ayaa u sheegay taageerayaal tiro badan oo saabinayay inuu ku faraxsan yahay natiijada uu ka keenay xisbiga doorashadii dhacday shalay. Wuxuu tilmaamay Scholz inuu aad ula dhacay muwaadiniinta dalka Jarmalka in ay u codeeyaan xisbigooda sidii ay kal horeba ugu codeyn jireen, isagoo intaa raaciyay in ay xisbiga ay haatan xaaladiisu tahay mid aad wanaagsan. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu hogaamiye Scholz wuxuu ku macneeyay natiijada doorashada ee shalay dhacday mid guul ah. Wuxuu carabka ku dhiftay in codbixiyaasha ay muujiyeen sida ay isaga u doonayaan in uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee Jarmalka marka ay ka degto xilka ra'iisul wasaarenimada haweeneyda Angela Merkel oo muddo dhan 16 sano dalkan soo hogaaminaysay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay shir gudoomiyay kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha doorashada xildhibaanada gobolada Waqooyi. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay bixinta dhaqaalaha ku baxaya xareynta ergooyinka amniga iyo hufnaanta doorashada gobolada Waqooyi oo muddo badan uu curyaamiyay muran hor leh. Waxa uu ka qayb galay kulankaas ra'iisul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga doorashada gobolada Waqooyi Somaliland, wasiirka maaliyadda, taliyaha booliiska iyo guddiga farsamada xafiiska ra'iisul wasaaraha. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Somaliland Qadar Xariir Xuseen oo ka warbixiyay kulankaas ayaa sheegay in la isla qaatay in la dedejiyo bixinta dhaqaalaha doorashada. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha ayaa shalay la kulmay taliyaha booliiska Soomaaliya iyo taliska booliiska AMISOM isagoona kala hadlay amniga doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi. Kulankaas ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi Somaliland, iyadoo ay ra'iisul wasaaraha uu faray taliska booliiska iyo kuwa AMISOM fududeynta howlaha amniga ee doorashada aqalka sare ee Somaliland. Antaas aynu ku safmeerin warkaad kala socoteen Samarayb TV. Inta warkan warar badan kulma doona waxaa idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.